Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Maanta waxaan idin soo gudbinayaa qiso cajiib ah oo ku dhacday nin taajir ah. Ninkan taajirka ah waxa uu dareemayay xanuun aad u daran oo dhanka caloosha ah. Sidoo kale waxa uu maray qalliimo aad u fara badan. Maalin maalmaha ka mid ah, asagoo gaarigiisa wata ayaa waxa uu u jihaystay bannaanka magaalada. Markii uu marayay tuulo ka mid ah tuulooyinka ka baxsan magaaladiisa, ayaa waxa uu arkay guri meel ku yaalla, hortiisana uu fadhiyo nin. Waxa uuna cunayay tufaax, cambo iyo khudaar kale oo fara badan. Ninkii tuulada deganaa ayaa ku soo dhaweeyay odaygii taajirka ahaa tuuladiisa. Ismarxabayn kadib, kusoo dhawaaw khudradan, ayuu ku dhahay ninkii taajirka ahaa. Nasiib darro, waxba ma cuni karo. Haddii uu cunana waxa uu dareemayaa xanuun dhanka caloosha ah. Laakiin isagoo ka xishoonaya una ixtiraamayo ninkii faqiirka ahaa, ayaa waxa uu cunay mid ka mid ah khudradii. Markii uu cunay ayaa waxa uu dareemay xanuun aad u daran dhanka caloosha. Ninkii ayuuna ku dul dhacay. Ninkii faqiirka ahaa aad ayuu u murugooday. Waxa uuna isugu yeeray carruurtiisii, waxa uuna ka dalbaday inay guriga geliyaan. Ninkii taajirka ahaa weli asagoo xanuun dareemaya ayaa waxa uu dalbaday boorsada gaarigiisa saaran inay u keenaan si uu uga soo baxsado daawooyin uu watay. Dhanka kale, ninkii faqiirka ahaa habeenkii markii la gaaray ayaa waxa uu baryay Alle, asagoo caafimaad u weydiinayo ninkan martida u ah. Ninkii taajirka ahaa waxa uu ku soo kacay ninkii faqiirka ahaa oo u ducaynaya, weliba duco uu aad ula yaabay. Waxayna ahayd ducada ri uu siiyay hadda ka hor 2 wiil oo masaakiin ah. Ninkii taajirka ahaa ayaa ka codsaday inuu u sheego qisada rida. Ninkii faqiirka ahaa waxa uu ugu jawaabay, qisadan waxa ay ka dhaxaysaa aniga iyo Alle subxaanahu wa tacaala, mana doonayo in aan qof u sheego. Ninkii taajirka ahaa markii uu ku celceliyay ayaa ninkii faqiirka ahaa waxa uu go'aansaday inuu u sheego. Waxa uuna ku yiri, maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday. Gabar dariskeyga ah ayaa waxa ay dhashay 2 wiil oo mataano ah. Kadib waa ay dhimatay. Gabadhii dadkii ehelka la ahaa ayaa waxa ay ilmaha u raadiyeen qof nuujiya. Habeenada ka mid ah ayaa waxaa maqlay 2dii cunug oo aad u ooynaya. Waxaan u jihaystay dhankooda. Markii aan u tegay, waxaan la kulmay ayagoo aan wadan wax dhar ah. Kadib suuqa ayaan tegay, dhar iyo waxyaabihii ay u baahnaayeen ayaa u soo gaday. Gurigii ayaana u geeyay. Cidna ayadoon i arkayn ayaa gurigii ka soo baxay. Markii aan gurigayga imaaday kadib ayaa waxaan dareemay weli inay carruurta wax ka dhiman yihiin. Anigoo arrintii ka fikiraya ayaa habeenkii seexday. Kadib ayaan riyooday. Waxaa ii yimid riyada dhexdeeda nin, waxa uuna ii keenay xarig. Waxa uuna igu yiri, ku xir rida xarigan. Subaxii ayaan suuqa aaday. Ridii ayaan u soo iibiyay, guriga ayaana u geeyay. Qisada rida waa sidaas. Sidaa daraaddeed, maalinkii rida aan u geeyay kadib, ducada aan Alle subxaanahu wa tacaala ka baryo waa lay aqbalaa. Waxaana rajaynayaa ducada aan caawa ku duceeyay Alle caafimaad taama inuu kugu siiyo. Ninkii taajirka ahaa ma uusan rumaysan qisada iyo ducada uu ninka u sheegay, waa uuna iska baxay. Markii ugu horreysay oo uu isbitaal booqdo ayaa waxaa lagu yiri, maxaad samaysay? Waxaan arkaa dhammaan xanuunadaadii oo dhan inaad ka caafimaaday, wax ciladna dhanka caloosha aadan ka qabin. Ninkii taajirka ahaa gaarigiisa ayuu soo qaatay. Waxa uuna soo aaday dhanka iyo ninkii faqiirka ahaa. Gacanta ayuuna ka dhunkaday. Wuxuuna ku yiri, wax dalbo. Ninkii faqiirka ahaa waxa uu ku yiri in Allah subxaanahu wa tacaala malaha loo wanaajiyo. Xusuuso xadiiskii Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam ee ahaa, haddii aad rabto inuu qalbigaaga buuxsamo, maskiinka quudi, ilmaha agoommada ahna madaxa u salaax. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay, subscribe saar, gambaleelkana furo, asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanid.